السلام عليكم kusoo dhawaada Aman Channel. Asxaabteena qaaliga ah waxaa laga yaabaa marar badan inay dhagihiina ku bateen taleefankani waa 3G ama taleefankani waa 4G. Sidoo kale waxaan ugu maqaalaa sanadkiina soo hayay inuu soo bixi doono internet aad uga xawaaro badan 4G oo loo yaqaano 5G. waxaana la sheegay inuu ku soo bixi doono taleefanada kala ah Huawei Mate X iyo Samsung Galaxy S10. inta aanan ka hadlin 5G waa maxay wireless waa internet aanan fiilo u baahnayn kaasi oo suurtagelinaya laba qof oo laba wadan kala joogto inay wada xiriiraan. sidoo kale internetku wuxuu soo maray marxaladooyin kala duwan. wuxuu ka soo bilowday 1G waxa uuna maanta marayaa 5G. 1G waxay inoo suurtagelisay inaan call sameyno. 2G waxay inoo suurtagelisay in message la isku diro. 3G waxay inoo keentay internet. 4G waxay inoo keentay internet ka xawaaro badan 3G halka 5G-na ay inoo keentay internet 100 mar ka xawaaro badan 4G. kaasi oo noo suurtagelinaya fiidiyowgii naga qaadan jiray waqti badan inuu maanta inoogu soo degayo sikimo ama daqiiqado. waa maxay waxyaabaha uu 5G uga duwan yahay 3G iyo 4G? waxa uu uga duwan yahay speedka. waxa uuna gaarayaa speedka 5G 20 gigabytes per second. tusaale ahaan qofka bini'aadanka wuxuu awoodaa markii dhibaato soo gaarto inuu ku falceliyo 100 millisecond. halka 5G markii laba qof isku dirayaan message ay ku gaarayso 1 millisecond. taasina macnaheedu wuxuu yahay 5G inay 100 markii speed badan tahay bini'aadanka falcelintiisa. sidoo kale 5G wuxuu suurtagelinayaa in dhaqaatiirta ay qaliimo ka sameyn karaan iyagoo wadankooda jooga wadamo kale iyagoo isticmaalaya robotic devices. taasina waxay cadeynaysaa in 5G ay suurtagelisay in naf bini'aadan la badbaadin karo iyadoo laga fog yahay. dhibaatooyinka uu leeyahay 5G waxaa ka mid ah haddii uu qofku u baahdo inuu helo internet 5G uu ku qasban yahay inuu helo injineero xirfad u leh kuwaasi oo install gareeya. sidoo kale wuxuu u baahan yahay device-yadii uu ka isticmaali jiray 4G inuu ku bedelo device cusub oo isticmaala 5G. haddii ay cilad ku imaato waxaad u baahan tahay injineero xirfad u leh kuwaasi oo ku dayactiro. sidoo kale shirkadaha ku tartamaya inay soo saaraan 5G waxaa ka mid ah Verizon, AT&T Labs, Sprint iyo T-Mobile. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.